ummadda islaamka ummadda Soomaaliyeed meel walba joogan waxaa leeyahay Ramadaan mubaarak maanta waxaan halkan aanu imaanay walaalkay Cumar King CK inaan soo dhaweyno wuxuu dadka hore kaga duwan yahay ma sha Allah bil barakaysan buu Ilaahay ku soo beegay abida kale waxa soo dhaweeyay hooyooyin masaakiina oo ma garanaysaa isaga dartii u yimiday Cumar dartii buu yimaadeen marka Ilaahay baa mahad iska leh alxamdulillah Ilaahay baa mahad iska leh qof walba islaamna waxaan u sheegayaa in masaakiinta meel walba joogan la caawiyo la noqdo sida walaalkeen CK isagana Allah barakeeyo dhamaanteen Allah ina wada barakeeyo bisha Ramadaanna ha laga faa'iideysto waxa la walaalkay Cumar soo dhawow Ramadaan tumay ama soo islaanusa Riraaj Films ku soo dhawow aan ku faraxsanahay maanta inaan live score joogno wax badan shaashada ka daawaday si fiican marka kood waxaan ku leeyahay magaalada ku soo dhawow maanta dhan waa hadashay waxa dib ugu malaabanayo su'aal yar aan ku weydiinayaa waxay tahay deegaanada Soomaalida oo dhan waa soo martay alxamdulillah maanta jijiga ay maatay yaa is leedahay deegaankay ku dhiman had qorsheynaysaa markaan wallahi waxaan isleeyahay dhanka ay Puntland duu Ilaahay raali ka noqdo iyo magaalada Djibouti aadiyad laakiin jigjiga waan ka filayay in dadka lagu soo dhaweeyo oo horaan u arkay dad bulshada magac kule lagu soo dhaweenayo in dhalinyarada halkan joogan ay maaragtay dadka jecel yihiin waxa cadaan igu ah siday mar kasta igu soo qori jireen CK maano imaadid halkaas tagtay magaaladaas joogtaa goorma jigjiga noo imanaysa haddana farxad gaar ah tahay in aan imaado oo aan joogo ما شاء الله ما سنتهي روانتي وحتصالوا نقطتين هذه الدرسلة لأن بدنا يوتيوبرا سيدا وقرب استاكتين ضدك مساكين تا إن شاء الله وحرجينا إن ماشي هتكسي وضو باهيدا الله سبحانه وتعالى يا رمين كرو لكن ذلك هنا وين كوكام بليانيا مركل وحن كلها سودو thank you brother سيدا أركتيد با روانتي فرحة أم فيلينين سبرايز أم فيلينين أيان هالكن كلمي أي يفيدين لليرة قروح ضبضان مسؤوليinta oo aan aad iyo aad ugu mahad celinayo ulajeedka hadda halkan u imaaday mid kala maahan sidii aan hore u sameyn jiray soo u qaban jiray maahan uu ka duwan yahay in dadka masaakiinta aan caawino oo garab istaagno
safarka aan hadda ku soo baxay waa caawinta dadka masaakiinta ah meel kasta ay joogaan haba ugu weynaato abaarihii waqooyi ka dhacay balse hadduu ilaahay raalli ka noqdo halkanna dadka masaakiinta ah garab ayaan maaragtay uga fidin doonaa kadibna socdaal ayaan waxaan ku sii aadi doonaa dhankaagii Somaliland deedna waa ku soo noqon doonaayo marka dambe aan ku soo noqdo ayaan noqon doontaa entertainment hadduu ilaahay raalli ka noqdo run ahaantii farxad aan filaynin surprise aan filaynin ayaan halkan kula kulmay ay ii fidiyeen dhalinyarada quruxda badan mas-uuliyiinta oo aan aad iyo aad ugu mahadcelinayo ulajeedka hadda halkan u imaaday mid kale maahan sidii aan horey u samayn jiray sooyi u qaban jiray maahan wuu ka duwan yahay in dadka masaakiinta aan caawino oon garab istaagno safarka aan hadda ku soo baxay waa caawinta dadka masaakiinta ah meel kasta ay joogaan haba ugu weynaato abaarihii waqooyi ka dhacay balse hadduu ilaahay raalli ka noqdo halkanna dadka masaakiinta ah garab ayaan maaragtay uga fidin doonaa kadibna socdaal ayaan waxaan ku sii aadi doonaa dhankaagii Somaliland deedna waa ku soo noqon doonaayo marka dambe aan ku soo noqdo ayaan noqon doontaa entertainment hadduu ilaahay raalli ka noqdo wallaahi sida hadda maaragtay youtuberka weyn ee Dirslaba uu sameynayo in iyagana ay sameeyaan oo platformka aan haysanno aan uga faa'iideyno dadka masaakiinta ah waayo annaga intaasoo qof aan ugu xiranaa madadaalinaa haddii maanta aan soo dhigno qof walaala oo dhibaataysan boqolaal baa arki karta oo qofka caawinaysa marka wallaahi waa wax wanaagsan in la isaga daydana aad ay u wanaagsan yihiin youtuberada kalena inay sameeyaan maaragtay waa ku dhiirigelinayaa macal tiktokerada